Yönetime el koymuştur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bismillah, Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaybteeni koowaad waxay noo maraysay iyadoo laba helikabtar oo ka mid ah ciidamada dalka Turkiga ay ka soo kaceen deegaanka Izmir oo ku dhow duleedka Istanbul. qaybtani maanta waxaynu ka bilaabi doonaa kadib markii ay diyaaradaha soo kaceen waxa ay isku dayeen inay sameeyaan hawshoodii ahayd inay qayb ka qaataan inqilaabka iyaga oo isla mar ahaantaasina u soo dhaqaaqay dhanka magaalada Marmaris oo ahaa magaalada uu deganaa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo waqtigaasi u qaadanayay fasaxa halkaasi. dhabahaantii waxaan nala soo hadlay mid ka mid ah xubnaha sirdoonka gaar ahaan ciidamada cirka waxaanu noo sheegay in xaaladdu aanay sax ahayn oo aan ku talagalno ka taxadirno laakiin markii dambe xubinkaan nala soo hadlay waxa uu weli waa caadi xaaladdu oo wax khalkhali ma jiraan se goor dambe waxaanu ka war helnay xog ah in diyaaradda ay kaceen oo ay doonayaan inay tagaan magaalada Marmaris oo ay ku socdaan sida ay u weeraraan madaxweynaha iyo halka uu ku sugan yahay kadib socdaalkiisii magaalada Ankara ay soo min Ankara waxa uu telefoonka kula hadlay qaybo ka mid ah warbaahinta isagoo uu sheegay in ay wadaan kooxo ciidanka ka tirsan oo tiro yar ay doonayaan isku dayeen in dadka ku jihaabiyaan balse la xisaabtami doono isla mar ahaantaasina lagu bixin doono wax kasta sidii loola xisaabtami lahaa sharciga dowladda. Dabcan ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo maray wadada u dhaxaysa Istanbul iyo Ankara wadada waxa soo weeraray ka mid ah isla kooxihii waday laakiin waanu ka leexinay intaan soo gaadhin wada kale ayuu ku leexday wadada kalena waxa ku yaalay godkaasi ra'iisul wasaaruhu galay wuxuu ku jiray ilaa muddo ku siman 2 saac oo intii uu la soo hadlayay wasiirka isgaarsiintu kadib markii wasiirka isgaarsiintu la soo hadlay isgaarsiintu soo noqotay ayuu dib uga soo baxay halkaas. waqtigaasi waxa wadooyinka magaalada isugu soo baxay qaybo badan oo kamid ah shacabka waxna halkaasi joogay sidoo kale tawaangi iyo baawur gaashaamo ay wadeen xubnaha fulin inqilaabka waxay ka yar ilaa 100 mitir ayaan u jirsanay inaanu ka gaadhno oo aanu kaga hor istaagno si aan u gelin qaybta ammaanka ee magaalada halkaas laga maamulayay oo aan u qabsanin halkaasi sidoo kale baraha bulshada aan faafinay sawirro si kor loogu qaado niyadda iyo moralka shacabka. kadib waxaa noo soo galay markii aan hoteelka ku sugnayn mid ka mid ah saraakiisha hoteelka waxa uu la hadlay madaxweynaha waxa uu madaxweyne hoteelka xaaladiisu caadi maaha halkan waxay noo xeebta beejka Greeka maxaa sidoo aragtay haddii aad hoteelka ka baxdo inta xaaladu isku darayso kadib madaxweynuhu wuxuu ku eegay indhaha u kulul kadibna ninkii uu yaabo u khajilay waxa la xukuumadu garan waayay wuxuu ka cudur daartay madaxweynuhu wax kale uu sheego iska isla gudaha magaalada Istanbul waxa ay kamaradaha wadooyinku qabteen afduub ay sameeyeen xubno ka mid ah ciidamada cirka ee ka soo kacay Izmir kuwaasi oo afduubay xubno ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka militariga booliska iyo sidoo kale ciidamada cirka oo ay ku qaadeen mid ka mid ah diyaaradaha halkaasi ka shaqeynayay iyagoo u geeyay saldhigga loo yaqaano Akar kaasi oo ku yaala duleedka magaalada Istanbul kadibna waxay dib ugu soo noqdeen isla diyaaradii iyagoo dib u qaaday xubno kale oo isla ka tirsan ciidamada sirdoonka iyo sidoo kale ciidamada booliska oo halkaas lagu celiyay. halkani waxay ahayd saldhigga ciidamada cirka Kanjarar loo yaqaano kaasi oo sidoo kale loo yaqaano saldhigga qaybta afraad ahaana saldhigga lagu xirxiray xubno badan oo kamid ah xubnihii diiday inay ka qayb qaataan inqilaabka sida saraakiil sarsare iyo sidoo kale hogaamiyihii ciidamada militariga waxaana sidoo kale goobtani ahayd goobta ugu muhiimsan ee laga fulinayay isku dayga inqilaabka fashilmay sanadii 2016 dabahantii way jirtay oo halkan ayaa lagu xirxiray inta badan saraakiisha diiday inay ka qayb qaataan sida General Akar oo ahaa hogaamiyaha ciidanka militariga iyo xubno kale oo saraakiisha sarsare sida doonka iyo ciidamada cirka dhulka
intii hawshan loo guda jiray waxaa la isticmaalay 35 diyaaradood iyo sidoo kale 37 helikobtar kuwaas oo ka soo kala kacay saldhigga afraad ee magaalada caasimadda Ankara saldhigga labaad ee magaalada ku yaala Diyarbakir iyo saldhigga sagaalaad ee ku yaala magaalada Kalashbak iyo sidoo kale saldhigga sideedaad oo ku yaala magaalada Istanbul مع انتصاف habeenimo waxa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga soo garaacay hogaamiye kamid ah hogaamiyaasha axsaabta mucaaradka isaga oo sheegay inay taageersan xukuumadda la doortay isla mar ahaantaasina ay ka soo horjeedaan inqilaabka sidoo kale waxa xeer kadib khadka soo galay hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee mucaaradka kaasi oo isna sheegay in Turkiga uu midaysan yahay sidii looga soo horjeedsan lahaa xubnaha ka qayb qaadanaya inqilaabkani dhabahaantii xaaladu markaa ma yahayn yaa talinaya yaa taageersan Erdogan iyo xisbiga haysta laakiin xaaladu waxay sidii loo ilaalin lahaa wadajirka shacabka Turkiga hogaamiyaashuna waxay qaadaan tallaabooyin aad wanaagsan oo ay taageereen xukuumadda waxa la wareegay xubno kamid ah mucaaradka waxaana ay warka u tabinayeen sidani xogaha ilaa hadda aanu helayno ayaa sheegaya in dalka ay la wareegeen xubnahani isla mar ahaantaasina dalku uu noqon doono dalku si shaqeeya hanaanka dimuqraadiyadda si looga suurtageliyo isku tiirsanaanta shacabka iyo isku duubnida xubnaha Turkiga mana dhaawacayso tani xuquuqdii hore soo jirtay ee ay lahaayeen shacabku sidaa waxa baahiyay telefishinka TRT oo ku hadlayay afka xubnaha inqilaabka fuliyay xilli uu xaalku halka marayo in dib ugu noqono magaalada Marmaris oo uu joogay madaxweyne Erdogan waxa uu soo geeray xubno kooban oo saxafiyiin halkaasi ku sugnaa si uu qabto shirkiisa jaraa'id ugu horeeyay waxaana uu xaalku ahaa sida tani dhabaantii shirka jaraa'id markii madaxweynuhu qabto waxaan go'aansanay inaan u dirno channelada kale si uu xogtu u gaadho maadaama oo mucaaradka ay qabsadeen warbaahintii rasmiga ah ee dawladda taasi way noo suurtagal weyday waxa la sheegay in khadku aad u culus yahay internetku hooseeyo fiidiyogan duunay MB-giisuna aad u sareeyo aad baan u qiimeeyay carooday dhabaantii waayo waqtigu xilligaana muu saacidin xilli wanaagsan ma ahayn dadkuna aad ugu urursan xaalka madaxweynaha iyo halka wax marayaan isku day fiican baan u sameeynay in badan laakiin way noo suurtagal weyday dhabaantii aan waxa soo garaacay hogaamiyaha xisbiga ahna hogaamiyaha xafiiska ee madaxweynaha waxaan u sheegay inaan waxna soo gaadhin laakiin aan suuqin goorno soo gaadho kadib markuu soo gaadhay wadana waan garaacay waxaan ku mudane waxna ma soo gaadhin waxaad samaysaa madaxweynaha waxaan u baahnaa toos ula hadalno oo khadka soo geliso kadib wuxuu igu yiri aan ka war doono kadibna aan ku soo celiyo markaan ka war doono wixii igu jawaab ku soo celin doona daqiiqad kadib waxa uu sheegay madaxweynuhu ogolaaday kadib waxaan weydiiyay sideen u suurtagelin karayno waxaan ku yiri Skype ma haysata wuxuu yiri Skype kuma jira telefoonka laakiin app kale waxaan haystaa FaceTime la yiraahdo kaasi waxaan u baahnaa khadka soo geliyo kadib waxaan soo ogaanay madaxweynuhu khadka soo galo si toos ah halka shacabka wala hadlo oo fariinta u baahan ka mariyo اتفقنا على التواصل من خلاله طبعا شعب قاعد بكسر waxay sugeen madaxweynaha inay xog helaan ama ay helaan xog lagu kalsoon yahay madaxweynaha halku marayo iyo xaalkiisu iyo caafimaadkiisa waxaan sugeen codka madaxweynaha iyo muuqaalkiisa oo arkaan taasina ugu dambeyntii way noo suurta gashay oo laga fursan waayay madaxweynaha khadka toos loo soo geliyo dhabaantii madaxweynuhu wuxuu gaarsiiyay dhawaaqis rasmiga ah oo in ay shacabku sameeyaan isku duubniyo oo isagoo caafimaad qabo waxaana khadka toos loo soo geliyay telefishinka CNN oo halkaasi kala hadlay shacabkiisa isagoo sheegay Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar efendim, buyurun. mudane madaxweyne xaaladeedu waa caafimaad laakiin waxaad nooga warantay hadda xaaladaada iyo sida ay yihiin dhabaantii shacabku waxaan sheegay annagu caafimaad qabno ilaa haddana wax dhibaato aan soo gaadhin laakiin kaliya taa ay jirto xubno isku dayay inay dalka inqilaab ku sameeyaan ilaa hadda anaga sanamay soo gaadhin waxa shacabku sheegayaan inay sameeyaan deganaansho isla mar ahaantaasina ay sameeyaan inay isku duubnaadaan oo ay ka hortagaan xubnahan doonayaan inay dalka Turkiga baabiyaan oo xubno ku soo duulaya oo reer galbeed uu ka dambeeyo si ay taas u suurta gashan waa in shacabka ay maqlaya ama ay taageersan ama doonaya dalka Turkiga inuu sii jira Hazırlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
wadooyinka isugu soo baxeen waxaad arkaysa iyagoo kaarayaasha isku furaya qaarkood isku dhigayaan waxaanay maqleen inay arrintani tahay in reer galbeed ka dambeeyo Israa'iil Mareykan iyo reer Yurub ka dambeeyaan waana ogaayeen sida u dhacayaan waxaanay ka taxadee sida uga hortagaan xubnahaasi dhabaantii markaan u soo joogay xilligii Cadnaan Mendes inqilaabkiisii waxaan isweydiin jiray sababta dadku uga hortagayaan markii la inqilaabay ninkaasi ama sababta uga ficilin waayeen laakiin waxaan ogaadeen habeenkii ay tahay inuu Turkigu horumar gaadhay jacayl dad islaana taasina hadalka madaxweynuhu meel aad muhiim ah taabtay isla mar ahaantaasina ku talagaleen inay ka hortagaan xubnaha fulinaya inqilaabkani ee ku soo duulay dalkayga Turkiga mar ahaantaasina shacabku waxay shacab nafsi ahaan u dhisan oo doonaya inay dalkooda ilaashadaan si ay uga gudbaan dhibaatooyinka ka hor imanaya markii xaalka halkaa marayo waxaa dalka Turkiga isku soo baxay guud ahaan gaar ahaan magaalada Istanbul xubno badan oo ka mid ah shacabka iyo booliska kuwa soo xirxiray dhammaan xubnihii ka qayb qaadanayay isku dayga inqilaab Yönetime el koymuştur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bismillah, Allahu